cudur haddii la yidhaahdo qof walba waxaa waaye waa xanuun oo qof kasta taabanayo. annaga maanta waxaan u xuseynaa waxaa kow ka ah maalmahan dambe waxaa aad u soo batay raydka kansarka oo dadka ku dhacaya weliba gaar ahaan magaalada muqdisho dadka la keenaya haba ugu badnaato gobollada in laga keeno. taasaa waxay nagu dhalisay marka inaan bal dadka ku baraarujino. barstationno badanna way jiri doonaan waxyaabaha ugu badan ee sababaya maalmahan dambe inuu soo bato xanuunkan iyo in lagu baraarugo inuu yahay khatar. waxyaabaha keeni kara marka waxay noqon karaan waxyaabo la xiriiro cimilada, waxyaabo kaleeto la xiriiro yacni cunooyinka la cunaayo, whatever waxay noqotaba inaan dadka ku baraarujino. wacyigelin in la sameeyo, awareness in la sameeyo oo wacyigelin dadku ay sameeyaan. sidoo kale in la ogaado bulshada loo sheego waxa uu keenayo dhibka uu leeyahay dadka meesha uu taagsan yahay. awareness programs in la qabto, dadka seminars in loo sameeyo bulshada, in lagala hadlo meelaha TV-yada munaasabadaha dadka lagala hadlo, la gaarsiiyo cudurkan sida uu yahay, qaabka uu ku imaado, sida looga hortagi karo iyo qofka hadduu ku dhaco sida isku daaweyn karo. message-kaas loogu talagalay maanta oo kale in la faafiyo bulshada dhammaan la gaarsiiyo. inta meesha imaatay inta naga maqan inaan gaarsiin u baahanahay. maanta waa maalinta adduunka laga xuso maalinta kansarka. waa maalin aad iyo aad u weyn in la weyneeyo u baahan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto. waxaan leeyahay caafimaad tam Allah siiyo. inta ku xanuunsan cudurkan waxaan leeyahay Allah caafiyo.